السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنيقو عبد الولي محمد أبو بكر ومشهد كبرتان برشاد كمبيوتر كا يسيدو كلام ملتي ميديا برو برودكشن haddaba muuqaalkan maanta waxaan ku baran doonaa ma la hadli kartaa kombiyuutarkaaga mase kuu jawaabi karaa tusaale ahaan waxaa dhici karta inaad timaado guriga sida hadda anigoo kale waxaan rabaa inaan kiciyo kombiyuutarka kadibna aan kacsado programkii aan u baahanahay ila fiiri hey Cortana open Adobe Photoshop. Okay, which Adobe Photoshop do you want to open? Adobe Photoshop CC 2018 or Adobe Photoshop 2021? Adobe Photoshop 2021. Sure thing. Starting Adobe Photoshop 2021. So, muuqaalkan maanta waxaan ku baran doonaa sidee ayaad kombiyuutarkaaga ula hadli kartaa kadibna uu kugu jawaabi karaa kaliya ma ahan inuu ku kicin kara Adobe Photoshop kaliya waxaad ku kacsan kartaa VLC any programs ee ku jira kombiyuutarkaaga tusaale ahaan hey Cortana open Microsoft Edge. Impressive. Sure thing. Starting Microsoft Edge. So, programkan wuxuu ka caawinayaa in kombiyuutarkaaga aad la hadli karto adigoo isticmaalayo Windows 10. Haddii aad tahay qof xiiseynaya casharadan, fadlan inoo subscribe gareey channelka. Sidoo kale, inoo like gareey muuqaalkan iyo muuqaalada kaleba. Hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashar walba oo aan markaas soo dhigno. Anigu waxaan nahay qofkii ku bari lahaa, adiguna waxaa tahay qofkii baran lahaa. Haddaba markii aan joogno kombiyuutarka, sidee ayaa programkan aan u enable gareysan karnaa? Waxa uu enable gareysan karnaa sida soo socota. Markii aad joogto desktopka, qaybta hoose waxaad ku arkaysaa ama qaybta taskbarka, waxaad ku arkaysaa calaamadda magnify-ga dhinaciisa kale inuu inoo yaalo geed lagu magacaabo Talk to Cortana. Kaliya aad ku siinaysaa. Kaliya markii aad ku siiso, automatically waxa arkaysaa in uu raadinayo xarafkii aan ku hadlayo inkastoo asiga always uu yaqaan English balse anaga waxaan ku hadlayno waa af Soomaali soo marka af Soomaali ma yaqaan laakiin always waxaad isku dayaysaa in aad ku qorto English so in aad la hadasho awood uma lahan laakiin wuxuu awood u leeyahay markii aad click siiso okay wuxuu awood u leeyahay markii aad click siiso kadib inuu ku dhaho hadal si aan kugu kiciyo waxaad u baahan tahay si asigoo aadan kicinin aad click ama aad u enable gareyso waxaad sameynaysaa calaamadda halkan ee settingska ayaad click ku siinaysaa kadib waxa ku soo baxayo dialog boxkan markuu ku soo baxo kan iska xirina dialog boxkan markuu ku soo kaco kan off ayuu ka yahay kana off ayuu ka yahay so marka maxaa sameynaynaa kan ayaan on ka dhiganaynaa tusaalahan hadda kan off ayaan ka dhigay hi Cortana ilaa ibri iyo ma furaayo balse kan markaan on ka dhigo waxaa arkaysaa inuu halkan kagu soo sheegayo hey Cortana open Adobe Media Encoder. Impressive. Hadda wuxuu ii kicinaya ama ii sheegaya inta Premiere Pro ku jirto Adobe Media Encoder do you want to open? Adobe Media Encoder CC 2018 or Adobe Media Encoder 2020. Adobe Media Encoder 2020. Automatically waxa arkaysaa inuu ku kicinayo program. Adobe Media Encoder 2020. Thank you. Okay, waxa arkaysaa marka in kombiyuutarkaaga aad awood u leedahay inaad la hadasho kadibna uu ku qabto shaqadii aad u baahan tahay. Ugu dambeyn, wixii aad raadinaysay waa aad heshay fadlan waxaanu ka codsanaynaa inaad inoo subscribe gareyso channelka sidoo kale aad inoo like gareyso muuqaalkan iyo muuqaalada kaleba. Hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashar walba oo aan markaas soo dhigno. Anigu waxaan nahay qofkii ku baray, adiguna waxaa tahay qofkii bartay. Inoo subscribe garey channelka sidoo kale inoo like garey muuqaalka. hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashar walba oo aan markaas soo dhigno waa anigoo ah Cabdiweli Maxamed waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo iyo cashirkeena xiga assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.